imaatinkii madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland muxuu sababay? Madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland imaanshahooda Muqdisho ayaa sababay cabsi iyo qalqal inuu galo amniga garoonka Aadan Cadde. Labada madaxweyne ayaa inta aysan imaan ka hor iska soo hormariyay ciidamo fara badan kuwaas oo gawaari ciidan iyaga oo wata joogay iridda laga galo garoonka, gaar ahaan qaybta madaxda ka gashay ee loo yaqaan VIP-da. Intaa waxaa dheereed in labada mas'uul diyaaradaha ay ku yimaadeen ee la saarnaayeen ciidamo kale oo fara badan kuwa uu watay qoryaha loo yaqaan BKM dadka qaarkiina ay u yaqaanaan dabajeexa. Ciidamada iyo security la socda labada madaxweyne ayaa waxay ahaayeen kuwa aad u feejigan oo aan cidna aaminin dadkana ka ilaalinay madaxweynayaasha. Intaa waxaa dheereed ciidamada la socday mas'uuliyiinta dowladda dhexe ee soo dhaweynayay Dan iyo Axmedoobe ayay u diidayeen inay galaan ama tagaan hoolka yar oo ay ku shirayeen ee qaybta nasashada garoonka. waxaa jiray isqabsi mararka qaar soo kala dhexgalayay ilaa labada madaxweyne kuwa ilaalinaya mas'uuliyiinta dowladda dhexe iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir. dadka shacabka ah ee garoonka soo degay iyo kuwa ka baxayay ayaa waxay ahaayeen kuwa la yaabay oo la amkaagay ciidamada faraha badan ee ku sugnaa garoonka iyo kuwa diyaaradaha ka soo degay, taas oo lagu sifeyn karayba bandhig hubeed oo la isku faanayay hubka iyo ciidanka. dadka qaarkii u soo joogay xilligii hogaamiye kooxeedka waxay dib u milicsan kareen bandhig hubeedka ay sameyn jireen xilliyada ay shirayeen, taas oo qof walba uu soo bandhigayo hubka iyo cududda ciidan uu haysto si aan loogu soo degdegin. sidoo kale waxaa jira arrin baraha bulshada qabsatay oo shacabka iyo dadka aqoon-yahanka ahba ay isdhex qaadayeen, taas oo ah habka borotokool ka baxsan ee gudoomiyaha gobolka Banaadir u soo dhaweeyay labada madaxweyne ee Puntland iyo Jubbaland. arrinta maxaa sababay ayaad is leedahay adiga?